عيد مبارك إلهي هنقا أقبله أعماش صوبا إلهي هنقا أقبله صلاة أن دكني سجود يا رب توقع يا دعاء يا تكبير انت كبعد ذاتك صوب مال الملك سوء الجوغان ما أنت ومالنتي أضحية صدقة اللي بحينيي ذاتك تبرت يرى وراها أباهيدا لقى دوريي farxadooda maxaan ku iraadaa iyo sidii ay u farxi lahaayeen la adkeynayay oo la xoojinayay sidaas daraadeed duruufaha dalkeennu maanta uu ku sugan yahay dadkeennuna ay ku sugan yihiinna waan wada ognahay oo waxaa jira abaaraha iyo duruufaha gaarka ah ee deegaanada qaar ka jira waa la ogyahay waana la garanayaa sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan iskaalmeeyaan walaalaha ay tabartoodu gaaban tahayna maalinta farxadda leh maxaan ku iraadaa udxiyada la bixinayo in ay deriska iyo dadka dan yarta intaba si gaar ah loogu qasdo in sadaqada la gaarsiiyo in maxaan ku iraadaa loo tago caruurtooda iyo ayagaba in laga farxiyo sax maaha ma habboona in adiguna aad faraxsan tahay ilmahaagu ay faraxsan yihiin oo aad wada ciidaysaan dariskaaguna uu dabkoodu dansan yahay ama ilmahoodu aanay faraxsanayn oo aanay ciidaynin sax ma aha walaalaha Soomaaliyeed dariska ka bilaaw dadka taagta yar ee meelaha gaarka ah ku xareysan waxa aad gaarsiin karto inaad gaarsiiso yaraan iyo badnaan ma kala laha qalbiga waay waxa ilaahay uu daalacanayo aanoo maxaan ku iraadaa ajir iyo xasanaad iyo dambi dhaaf intaba kugu siinayo wax hormarso ilaahay abaalkeed waad ka helaysaa inta kadib waxa idana ku darayaa dardaaranka walaalayaal in la isku qalbi furnaado la isku qalbi fayoobaado la iscafiyo oo walaalkaaga aad wax ka tabanaysa maanta maalin ka habboon oo aad cafilayd ma jirto inaad cafiso oo aad tiraado ilaahay dartiis ayaan ku cafiyay sidaas daraadeed ayaan dad wada nool qalbigoodu wada san yahay waxa rabbi ay ka tuugaanna wada helayo aan noqonaynaa marka qulubteennu ay isku furan tahay oo qulubteennu ay naxariistu ku jirto oo aan isu naxariisanayno iscafinayno isxaq dhowrayno is-ilaalinayno meeshaas waaye meesha nimcada ilaahay iyo naxariista ilaahay ay ka soo degaysa haddii alla yiraahdo walaalayaal mar kale waxaan leeyahay sadaqada iscafinta isu naxariisashada maxaa iswalaalaysiga intaba waa inaha ugu muhiimsan ee dadka nagu maanta ay baahida ugu badan ay u qabaan walaalayaal hal iscafiyo walaalkaaga muslimka ee Soomaaliga ah cafi hadduu wax ka biyay cafi wixii tagay nooma soo noqonayaan dadkii naga dhintay nooma soo noqonayaan inta nool ayaa dhowrid naga rabto maanta ayay tahay in aan berri iyo berri daba qurxan haddii alla yira aan ka fakarno marka sidaas daraadeed Soomaaliyay meel kasto aan joogno aan iscafino aan heshiino aan walaalowno waxa aan wada leenahay aan ka wada shaqeyno waxa aan gaargaarka u kala leenahay waa ka shaqeyn karnaa ee waxa aan wada leenahay aan ka shaqeyno ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Allah barakeeyo waxa ay haystaan Allah u kordhiyo intii masaajidkan dhismihiisa iyo fikirkiisa iyo taladiisa intii lahaydba Allah barakeeyo niyadiisa meed ee ay ku dhiseen ay ku soo fikireen ee ay muxuu ahay xoolahooda ugu horeen ilaahay bedelkeeda khayr qaba Allah siiyo masaajidkan tabarucaad dad Soomaaliyeed oo muxsiniin ah walaalo ah ayaa dhisay khayr badan Allah ka siiyo dhulkana dawladda bixisay masaajidkana dadka dhisay diintu sidaas dawlad iyo dadba mas'uuliyad ay nooga wada saaran tahay
ilaahay idinkiisa gaarana dawladdu way u sii saaran tahay waan ilaalinaynaa waan dhowraynaa wixii horu marinaayo diintaan samaynaynaa wixii maxaanka dhaqankeeda xoojinaayo ayaan samaynaynaa ilaahay idinkiis dadka Soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimka walaalayaal diinta ilaahay waa waxa aan ku midaysannahay nasiibka aan leenahay inaan boqolkiiba boqol muslimiin noqon sunniyiin ahaan shaaficiyiin ahaan yacni inaan midaysannahay dhinac walba ka midaysannahay tilmaamay midnimadaasi wanaagsan ee ilaahay uu hadiyada noo siiyey aan ilaalinno waxa ka soo sokeeya intaas waa camal adduunye iyo maxaanku idhahdaa damac bini aadanay ay ku soo dhammaanayaan aan iska ilaalinno ummad fursaddaanoo kala haysata ee noocaan ah ee isku maxaanku idhahdaa hal ummad ah dhalasho wadaagta diin wadaagta af wadaagta deegaan iyo maxaanku idhahdaa dhaqan suuban wadaagta intaba adduunyada kuma badna waa naxariis ilaahay naxariista ilaahay aan ka jawaabno naxariista ilaahay aan ka jawaabno oo wanaag iyo naxariis dhexdeenna isu naxariisanno aan uga jawaabno haddii aan la yidhaah aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan meel kastoo ay joogaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh